wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta qoyska arrimaha bulshada Soomaaliland Marwahiinta Jaamac Xirsi Gaan ayaa sheegtay in sanadka 2019 ee wasaaraddeedu shaqo abuur u sameysay 55 qoys oo kamid ah danyarta hayntoodu nololeed yar tahay ee ku nool gobolada Soomaaliland kuwaas oo ay u soo xuleen hab waqtiya nasiib ah. wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha qoyska Soomaaliland oo xadda 3 November la hadashay codka bariga Afrika ayaa sidoo kale iska fogeysay eedeymo loo soo jeediyay oo ku saabsan inay qoyskan ay shaqo abuurka u sameysay wasaaraddeedu ay yihiin kuwa dooran oo la og yahay. waxana ay sheegtay in aanay jirin dad gaar ah oo shaqo abuurkani loo sameeyay balse ay yihiin dadkii habka nasiibka ah uga soo dhexbaxay qoysaskii danyarta ee ka kala yimi gobolada Soomaaliland oo dhan siday hadalka u dhigtay. duwayaasha gobolada jooga ayaa waxaanu u dirnay inay soo xulaan dadka danyarta ah ee deegaanka ay ku sugan yihiin jooga. isuduwa waliba wuxuu soo diray 10 qof ayuu liiskooda noo soo diray. 10ka qof waqtiya nasiib baa loo ridaa. waxaa kala qaata 3 shay ee lagu kala qoro magacyada dadka la xulay. qof baa qora, qofkaasina 3 qof oo aan goobta joogin buu u dhiibay. 3daa qof baa la kala saaraa oo qof walba uu numberka uu ku qoran yahay la soo baxaa. sidaasaanu ku xulanaa marka ugu horeysa gobolada fogfog dadkana looga soo diro. Maroodi Jeex gudihiisa waxa jooga shaqaale la yiraahdo social worker oo gobolada kaleba u soo xulay. social workerska ayaa keena waxa dadku iyaga halkan yimaada markay sameeyaan dalabkooda ama codsigooda waa la liisteeyaa. liiska qaybta arrimaha bulshada lagu xareeyaa. marka liiska laga reebo waxa loo diraa dad soo ogaada xaaladda ay ku sugan yihiin. waxa la kulmaa guriga, caruurta la soo eega, deriskana waa la wareystaa. marka ka bacdi waxay keenaan report-ka ayaa iyagana lagu qoraa oo lagu meeleeyaa. sidaasaanu marka hore ku xulanaa dadka. waxaanuna uga sameeynay waa miisaaniyadda qaranka. waxaanu u sameeynay waa bulshada reer Soomaaliland. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada Soomaaliland Marwahiinta Jaamac Xirsi Gaan ayaa sheegtay in wasaaraddeedu ay sanadkan 2019 ay soo gashay 39 dacwadood oo ku saabsan khilaafaadka soo kala dhexgalay qoysas. 18 kamid ah ayaa ay sheegtay in ay xaliyeen 10 qoys oo kale oo ay khilaafaadkooda xallin kari waayeen ay u gudbiyeen maxkamadda halka 11 kalena ay wali u yaalaan wasaaraddeeda xalka gaadhisteeda siday hadalka u dhigtay. wasiirka ayaa intaasi ku dartay in wasaaraddeedu ay door muuqata ka qaadato xallinta khilaafaadka soo kala dhexgala qoysaska sina wadayso arrinkaasi. ee aynu ku jirno bishiisii 11aad bilowga tahay waxa soo galay 39 dacwadood oo dhanka khilaafaadka qoyska ah. waxay wasaaraddu ay xalisay sida aan filayo 11 qoys ayuunbaa wali noo sii yaala. marka 29 kale 28 kale 10 kamida waxa lagu celiyay maxkamadda oo waa la khilaafkoodii ayaanu dhameystir kar weynay. 18 kalena waa la xaliyay oo iyagoo qoys midaysan bay wasaaraddu dirtay. Wayaasin Cabdullaahi Yasrashka codka bariga Afrika magaalada Hargeysa. si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.